حديث كان مركب حربنا إن وحير دول استاجنوا لفظ كان تفلي ما دام مالين دويد وحد عاي ننا محاضرة قبتي مركزو لفظ كان تفلي أيو دول استاجي مركزو حير لفظ كان محطوسنا رسولك إنه إنجر لها صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ووحي الله لقما قالوا مركا بل إن علماء وحي كيراهين لفظ قاس دور دقيقة عن كهذا النطف لي رأسه marka ugu horeysa horta waxa muhiim ah in la ogaado shariicada xagee masdar u ah oo xagee laga qaadan karaa markii la rabo sifaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam in la sugo ama tilmaamaha rasuulka kamida sallallahu alayhi wasallam in la sugo oo qof uu doonayo inuu yiraaho tilmaantaas rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam xagee masdaru tashriic u ah xagee laga qaadan karaa waxa jira cilmiga usul fiqhiga marka laga hadlaayo sheekhan la yiraaho imaam shaatibi oo saaxib al-usula sheekhan qaariga ma waa sheekh usuliga aha shaadibi qawaa'idka culimada dhan ay isku waafaqsan yihiin qaacida kamid oo soo qaaday markaas wuxuu yiri man ya'khudhu al-adillata min atraf al-ibarati shar'iyya qofkii wuxuu yiri daliil ka qaata cibaara oo xagga sharciga ku soo aroortay kaligeed hal cibaaro dul istaag laakiin muqaarana ma uusan sameeyno adilla fara badan ma uusan baarin mana isbarbar dhigin qadiyadan ama mawduucan ama mas'aladan qofka uu ka hadlaayo inta ahadiiso ku soo aroortay inta aayado ku soo aroortay aqwaalul ulama muqaarana kuma sameeyno hal cibaaro darafkeedu istaagay darafka yaani waxa weey waa cirifka geesu ka dul istaagay cibaaradii wala yanzuru ba'daha bi ba'd cibaaraadkii sharcigana qaarkeed uusan u fiirinayn uusan bandhigayno muqaarana uusan sameeynin wuxuu yiri shaadibi fayushiku an yazilla qofkaas waxa degdegayo dhow yiri inuu kufo oo uu simbirixdo waxa sharciga simbirixa ay ugu dhacdo haduu hal lafdi kaliya intuu dul istaago uu yiri halka lafdiyan waxaan ku sugaa xukun sharci ah ama halkaas lafdiyan waxaan ku sugaa sifo kamida tilmaamihii rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo lafdiga dul istaagaya oo muqaarana aan sameeynayno adillada kale aan isbarbar dhigaynin walaysa min sha'ni ar-rasikhin wuxuu yiri dadka raasikhiinta oo cilmiga ku xiideystana sha'nigooda sidaas ma aha markay doonayaan xukun sharci inay qaataan muqaaran ay sameeyaan adillada isbarbar dhigaan walidaalika shaadibi isagoo qaacidadiisa wata wuxuu yiri fakana al-udwu al-wahid la yu'di fi mafhum ahkam ash-shari'ati hukman haqiqiyan wuxuu yiri hal xibin oo xibnaha shariicadu ay ka kooban tahay oo la dul istaago halkaas xibin lagama qaadan karo xukun sharci ah xukun sharci lagama qaadan karo famuttabi'uhu qofka halkaas xukun raacana oo muqaarana aan ku sameeynin adiladii kale aan fiirinayn muttabi'u mutashaabih wuxuu raacay yiri mutashaabih ayuu raacayo wuxuu ka tagay waxyaalihii iska cadaayo muhkamka ahayo waadix aha wixii muhkamka ahayo waadix ayuu ka tagay maxaa yeelay hal cibaaro sharciga ku soo aroortay buu dul istaagay ayadan xukun ka qaadanahay meeshii laga rabay muqaarana badan inuu sameeyo sidaas awgeed marka waxa laazim ah lafdigan taflii fahamkiisu wuxuu u baahan yahay muqaarana sharciya iyo muqaarana luqawiya labadaba in la helo markaas ka bacdi waxa nooga soo ifbixi kara xukunka xaqiiqadiisa inaan gaarno taas nooga soo ifbixi karto muqaaranada marka haddaan hormarino oo xagga sharciga taflii ra'sa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxa la ogsoon yahay inta ilaahay uu abuuray subhanahu wa ta'ala qofka ugu uduga badnaa oo ugu carafta badnaa inuu ahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ahadiis fara badan oo la soo koobi karin ayaana arrinka tusinaya waxa kamida xadiiskii imaam ahmed rahimahullahu ta'ala kitaabkiisa musnadkiisa uu ku warinayo min xadiisi Anas ibn Malik oo uu yiri Anas wala shamimtu raa'ihatan adyaba min riihi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wala shamimtu raa'iha عرف أنو ولقي ما أنا أرين أضيبا كأذق بدن أو كوناك بدن من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت رسولك صلى الله عليه وسلم وحكروا سداس وكلا إمام أحمد رحمه الله تعالى مسند كيس وكورنا خصوصية الشعر كرسولك صلى الله عليه وسلم إن أذق جارة وإسكال هاجري تنت رسولك سجارة أي أذق جرتي ويعرف جرتي وإمام أحمد مسند كيس وكوريي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأضيب رسولك صلى الله عليه وسلم تنتي سنة آدي أبضنيد آدينا أدوك بضنيد آدي وعرف بضنيد ما خصوصية قارة وحكوسة أرورتي
شعرك يتنت رسولك صلى الله عليه وسلم ديب قارة إن إلهي أسميه سبحانه وتعالى وأدو قارة إلهان جرتي وحكالو الدارمي كتاب كيسة سنة كيسة سداس وكلا وكورين لم يسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا إلا عرف أنه قد سلكه رسولك صلى الله عليه وسلم الطريق صوممره إلا الطريق هدو صومره ولا قرن جري أو ولا فهم جري طريقاس إنه مري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنه صومري ولكثرة رائحه رسولك صلى الله عليه وسلم روائح ديسا يؤذك ديسا يديبك كسو كرايا عرفتي سأوجد الطريقة دن لقد دريم جري وعلامة أستان أيها هنجرتي إنه مري رسولك صلى الله عليه وسلم من ديب عرقه رسولك ديدت كيسا ديب كيسا أوجيز أي وضضه دن يسوء جرت أو يسوء عرفي جرت تاسي مركا وحيت المامة يعني مقارنة الشرعية يعني إنه يسن أسر دوان كريمبا رسولك صلى الله عليه وسلم إنجر وحيال الله مذا إنه يسن أسر دوان كريم ما دام تنت خصوصية قارة إلهي بأوية لي عرف قونية بتنت رسولك صلى الله عليه وسلم أي هنجرتي بدك على صحيح مسلم كقديسة وحنوي من دونا قبل صحابي ده هذا ندل تاجنا نفس الديدة إن رسولك صلى الله عليه وسلم قريب أنتو كقيلو شدي بدت كيسي أي صوت دليقا جرتي أو قرورات أي كشبا جرتي أو إديه جرتي يا رسول الله نجعله في ديبنا ونرجو بركته ودو كان كدغان إن قريها إنتان بدت كاغدغانو أيان مرمرسنا إنه إديه جرت مركز سيداس رسولك صلى الله عليه وسلم جسدا وشعرا وروحا وحوها أطيب الديب ديبك مدك أدوك بدن أي رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه سيداس وهانجري مقارنة كلا طبيعة بهاش النفط إن الدراسية ومهم بهاش إنجرتها طبيعتها هي أماكنها أي كدلته كتاب كان اللي يراه الحيوان أو إسكالية هي جاحد شيخ جاحد اللي يراه وحولية هي القمل يخلق من عرق الإنسان إنجرته وحلقة أبو راه ليه هي ديدت كقفك بني آدم كا ووسخ جلده هي مقار كيسه ووسخه به لماذا أسأل إلهي كأبو راه سبحانه وتعالى هاشا قمل العرق القمل يخلق من عرق الإنسان ووسخ جلده قمل وحلقة أبو راه قفك بني آدم كا ديدت كيسه هي ووسخ جلده مقار كيسه وسخه كبضتي أي لقى أبو راه والقمل يعرض للإنسان إذا كثر وسخه والخموم قملgu wuxuu ku soo dariyaa qofka bini aadamka markii wasakhdiisu badato khumuumkiisuna u bato khumuumka waxa loo jeedaa waa shirka zaa'idka ah shirkiisu markuu aad u xumaado wasakhdiisuna ay badato markaas dabiica ahaan bahashana ay timaada injirta ah waxa kale oo jaahid kitaabkiisa al-xayawaan uu ku leeyahay wuxuu leeyahay wal qamlu yusri'u ila ad-dajaj idha lam yuqsal qamliga dabiicadeeda waxa kamid uu leeyahay xataa bahashan dajaajada doorada way gashaa hadii doorada aan la dhaqin oo nadaafadeeda aan lagu dadaalin doorada nafteeda nadaafadeeda lagu dadaalin waxay noqotaa dooro qamli ah oo injir badan ay noqon sidaas awgeed jaahid wuxuu intaas ku soo daray wuxuu yiri bahashan qamliga ah laba sabab ay mid ku iman kartaa sababkan hadda uu soo sheegay oo meel wasakh badan oo uraysa oo qarmoon in ilaahayba uu ka abuuro subhanahu wa ta'ala ha noqoto xayawaanaadka kale ama qofka bini aadamka jirkiisa ha noqoto sababka labaad ee ku iman karto qamliga waxa kamid uu leeyahay an yakuna al-insanu tabi'at al-wasakh wal-qaml yani qofka dabiica ahaanba inuu injir u dhashayba si kasto u qubaysto inuu injiro iska noqonayo lidalika markaas waxa la yiraahdo leeyahay fulanun dabi'iyul qamli يعني قملgu dabeecad u leeyahay oo dabeecadiisa ilaahay wuxuu abuuray haduu qubaysto xataa baashu inaysan ka hareynin oo noloshiisaba ay laazimayso marka waxa leeyahay waa qamil ninkaas injiroole labadaas marka arimood oo baashan dabeecadeeda ay ku timaado labadaba nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ka fog yahay ilaahana ka fogayay subhanahu wa ta'ala oo ka bariyeelay maxaa yeelay maadadan ugu horeyso ah al-qamlu yukhlaq min 'araq al-insan wa wasakh jildi رسولنا صلى الله عليه وسلم إسقى أحاديث فربضان كو أماني أو يري النظافة شطر الإيمان نظافة وشطر الإيمان خلقك إلهي أبورنا إسقى أقول نظافة بدنا إسقى أنا أمر جري رسولك صلى الله عليه وسلم تاسي مركز سورة قلمها إن وسخ أهان
xaggeeda qamligu uu uga yimaado rasuulka sala allahu calayh wasalam dabeecadda rasuulkana sala allahu calayh wasalam inta dabeecadaha rasuulka sala allahu calayh wasalam la daraasaynayey qof tilmaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeecadiisa ku soo dartay waa tabiiciyu lqamli ma jirto ilahayna ka beri yeelay dabeecadiisa inay dabeeca qamliya noqoto oo injir ay noqoto dabeecadooda maxaa yeele dabeeca qamliya qofka marka leeyahay qaabkiisa ilaahay buu abuuray 100 goor hadduu qubaysto 100 goor uu isnadaafiyo bahashu ka harmayso waa dabeecadiisa qof intaas nabiga ku sheegtana sala allahu calayh wasalam ma aysan jirin markii luqa ahaan loo soo laabto ereygan taflii ereyga taflii dhowr luquu ku yimaadaa wuxuu ku yimaadaa taflii fulaanun falaa ra'sa fulaanin bimacnaa mashada waa u shanleeyey waa ku yimaadaa isaga naftiisa waxaan ku soo marnay kitaabu ulxaj tafliidii oo ku imaanaysa bimacnaa tusarix way shanlaynay ku imaanaysa waxaan ku soo marnay kitaabu ulxaj waa saxaabigii abu muusa alashcari falad ra'si riwaayo kalena waxay ahayd famashadatnii laba riwaayo isku xigtaan ku soo marnay famashadatnii iyo falad ra'si islaantiyaa madaxaygii shanlaysay riwaayada kale fasiraysay waxay ahayd famashadatnii marka mashdiga iyo shanlayntaas ereygu ku yimaadaa wuxuu kaloo ku yimaadaa ereygan tafli ra'sahu bimacnaa yabxathu ra'sahu can ilqamli wa naxwi madaxiisa wuxuu ka raadinaa ama uu ka baaraa injir iyo wixii la midahu ka baaraa macnahaasna waa ku timaadaa luqa ahaan laakiin ereygan markii la yidhaaho tafli ra'sahu oo tafliiba uu joogo awsaafta iyo tilmaamaha rasuulkeena markuu joogo sala allahu calayh wasalam waxa macnahaas ka leexinaya qaraa'in sharciya oo fara badan ee adilo fara badana ka leexinaysa oo ah nabiga dabeecadiisa sala allahu calayh wasalam inaysan sidaa ahayn in nabiga sala allahu calayh wasalam shacarkiisa ay ahayd tinta midda ugu uduga badan caraqa rasuul